khayraad wadin salaamaya salan kadib maanta waxaanu rabnaa inaan dul istaagno dhalinyaradii maanta laga soo badiyay Soomaaliya Tanzania Soomaaliya Ethiopia sanadadii ka horreeyay Soomaalida siday u ciyaari jireen kama sheekeynaan aniga Liverpool iyo Arsenal okay tan koowaad markaan ka bilaawno Soomaalida sanadada hore loo soo dhiibi jiray 8 gool iyo 16 gool iyo da'dooda loo tirin jiray cilada ugu weyn ee aniga aragtideeda markii la joogo cilada ugu weyn meesha waxay ka taagneed dhalinyaradii isfahansan isku keenay kulanka markii la qaban rabaa waxa la leeyahay waxa ka dhiman bil ama 3 isbuuc ama 2 isbuuc ka dhiman markaas waxa la isku keeni jiray ragal la aqoonin iyagu is aqoonin mid Sacuudi laga keeno mid Qatar laga keeno mid Germany laga keeno mid UK laga keeno Mareykan Canada Australia hatta qaar Australia jasiirada fog la keeni jiray dhalinyarada ma isweydiinayaan nimankan geeda ma cabaan shishad ma cabaan balwad ma leeyihiin malahan yaa yaqaan itaqaana malaha laakiin nimanka meesha waxa ka dhigaya in dhumasho caadil ciyaara kadib caadil ciyaara markaas da'dooda loo dhiibi jiray banooni ma jiro waxay banooni u jirin sababta ugu weyn waxa ahayd niman isbaas aqoonin isfahansaneen isku garoon ahayn ay dhamaantood wada ahaayeen waxyaalaha la yaab kale nimanka lagu arko waxa kamid ahayd waxa la jirnay bari subaxa ciyaar leedin dhaqsiyaha markaas inta shishad la soo baxaan meesha ku abi jiray subaxii la soo galay 8 gool dalq kulan labada la qabanaa hadana 16 gool inta u socotay intaas ka badan laakiin nimankan 17 ka markay taagan yihiin maxay uga duween dhalinyaradii hore la soo dhaaf waxyaalo badan uga duween waxa ugu horeysa waxay tahay waa niman mustaqbal leh energy hayaan tayo leh banooni waxa ciyaareen inaba aan caadiin marka Ethiopia ka badinayaan way hadda kulanka Tanzania ma xumaan ay laftigooda banooni markii la ciyaareen Tanzania laakiin dhibka ugu weyn cilada naga haysta waxay ahayd banoonigooda tababaraan ma fahansaneen nimanka banoonigooda wuxuu weerar ka ah dhanka midig laakiin cilada ugu weyn Soomaaliya waxay keysatay tababaraha oo ahayd inuu fahmo Tanzanianka meesha ka soo weerarayaan ama ka soo weerarayeen taa qodob dhalinyarada ay laftigooda xogaa qaybta dhexda way ka jiifeen laakiin still rajo fiican leeyin semifinal loo soo baxeen aniga aragtideeda waxaan qabaa nimankan qarsha la geliyo waqti la geliyo oo riyada loo rumeeyo aniga shakhsiyadeeda markay taagan tahay wiilashan waxyaalo ugu weyn waxa kamid ah sida isku ceshanayaan refereega is ugu la murmeenin systemka fiican u leeyihiin taa qodobka labaad markaan soo laabano kulanka Soomaaliya Tanzania hadda nasiib looga badiyay tusaalahan banooniga inkastoo aniga shakhsiyadeeda qaybsan aad u nacbaa gool adoo lagu yeeshay qofkii ama tiimkii goolka kugu yeeshana istuuran maanta injira iska dhigdhigaan dunka ugu nacbaa dabeecadda bay galumayso nimankii 79 daqiiqo marayso ma maqan misteetan goolkii labada laga dhaliyay 10 daqiiqo ugu dambeeyso dhan istuur looga xanuus balaaya loogu dhameeyay marka maxay ka dhigan tahay nimanka mustaqbal fiican leeyihiin la dhiirigeliyo la taageero nimankan qarasha la geliyo aniga aragtideedan ka hadlaya lagaan aniga aragtideeda qaranka oo soo baxeen waqti la geliyo qarasha la geliyo nimankan la taageero Arsenal Liverpool waxa niga ma gelin nimankan aniga noo muhiima in baadi manin marba hadii anaga semifinal imaan Soomaaliya semifinal soo liga maaragtay wiliga maaragtay way macallinkana waa rajeynaya ragaan inuu maaragtay ilaala gaar ka qabto inaysan balwad nagu yaalna waa rajeynaya sida ku hore kale isku keenkeeni jiray balwad lahayo kale inaysan nagu noqon daawada waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkan tababarana waxa rajeynayna sida ilmihiisa kale inuu nimanka u ilaaliyo balwad uu ka ilaaliyo inuu la sheekaysto mustaqbalkooda hadafkooda ninkii dhisi lahaa waa inuu ku dadaalana waa rajeynayna qaranka Soomaaliyeed ilaala gaar naga mudan yahay barnaamij midkan la mid intaan kulmi doono sida ay nabadgelyo